ninkii odayga ahaa ee cabdi aadan qaysna waa ka soo fadhiistay waa raggii dee isagu weliba dardartii buu qabaayo haddii ay ka dhigo maaragtay weydiinta hiiyahay laakiin anigu mahasada yara kooban waxaan midhaha uma jeeda waxaan ujeedaa sheekaday ku timi intaasuu naga yara dhegaysta waxay 1971 annagoo dhowra oo ragga caawa aan garanaya maalinta wada fadhiyay uu ka mid yahay maxamuud ismaaciil xudaydi waxaanu ku qayirayno fadhinay guriga allaha u naxariistee xaliima khaliif magool dabeedna nin baa u yimi oo waraaq buu dhibay magool nin baa u yimi waraaq buu dhibo wuxuu yihi waraaqdan baan kuu sidaaye ma hubo meeshuu ka keenay laakiin magool baa loo dhibay magool way furtay waxay aragtay inay carabi ku qoran tahay fadhigii bay iga yeedho qolkeedii hurdada iyo igu yeedho waxay tiri warqada tan iyo akhri waraaqdii baan furay khad cas bay ku qoran tahay afcabeed bay ku qoran tahay waan bilaabay hadalkii sidii nin isaga warqada loo soo diray baan u akhriyay waayo wixii aan ka filayay waraaqda wax ka duwan oo cajiiba oo la yaab leh ayaa waraaqdii igaga soo baxay waa nin hadlaya ninku waa nin suudaaniya jacayl buu ka hadlayaa khartuum buu ka soo diray magool buu soo diray uu jecel yahay luqaday ku qoran tahay waa carabi jacayl haddii laga hadlayo afka carabiga iyo luqadda carabiga wax jacaylka kaga xeel dheer ma jiraan balaaqadii iyo qofku dee markuu siryeeli markay ka run tahayna waa kala luqad waxaan arkay waxaanan weliga kuna seexan kuna soo toosin wuxuu soo arartaba wuxuu haddii ilaahay ka dhigo soo wadaba aakhirkii wuxuu ku soo gabagabeeyey jacaylkiisii markuu ka sheekeeyey inuu gabadha jecel yahay oo sababta uu jecel yahay runtii aanan anigu qeexi karin waayo magool ilaahay ha u naxariistee iyo hablaheena fanaaniinta ah suudaan bay tegi jireen marka dabaaldegooda gobonimada aad baa loo jeclaa suudaan aad bay u jeceshahay fanka soomaaliyeed horta fanka soomaaliyeed oo dhan si gaara waxay usii jeclay magool dabeedna ma codkuu ku jecel yahay magool bas sida kale uu jecel yahay taas allahu yaclam laakiin aakhirkii wuxuu yidhi khadka waraaqda kugu soo qoray qalin cas maaha hadda waana khad cas qalin cas maahee wax kale maan samayne intaan sariij soo qaatay oo xididadeeda mid dalooliyey ayaan dhiig ka soo qaaday qalinkii abusakaabaha la odhan jiraan ku shubay dabeedna waxaa warqadda aan ku soo qoray waa dhiiggayga aan xidid ka soo qaaday anigu dhulka ila wareeyey amba waxbaan tiriyaaye laakiin jacaylku inuu ilaa heerkaa gaadhayo oo xididada la daldaloolinayo dee aniga iguma jiri sheekada oo bahalkaad ku ciyaaraysay ee marbaa halkan iyo halkan iyo halkan lahayd ma sidanuu halis u yahay su-aalahaas baan isweydiiyey magool warqadii baan u akhriyey laakiin waxay igu reebtay raad culus bay aniga ninkii hadalkiisii igu reeb bella foore la yidhahdaan degana markaasoo habeena dhambay hor iman jirtay waa markii igu horreysaa dee sheeko noocaasa iyo jacayl noocaasa bahalku waa noocyo badan yahay oo haddii ilaahay ka dhigo maaragtay laakiin mid noocaasoo xididka la daloolinayo dhiiga laga soo qaadayo waa markii igu horreysay finally waxaa muddoontay inaan ninkaasi wuu iga yaabiyey isagana ka yaabiyo ninkii gabaygan baan maasadan kooban baan tiriyey laakiin iyadoo aan doonayn hadalkii hore ku lifaaqo ninkii wuxuu yimi muqdisho yimi dabeedna maxamuud ismaaciil xudeediyo aqalkii magool fadhiyay saleen isagoo caawa joogaa fiicnaan lahayne sheekadii baa looga sheekeeyey dee wixiisii tana markaa waa suuqay taalla markaa maalin maalmaha ka mid ah koor galaba aloo la foore joogu ninkii oo uu wado la foore igu keeno wuxuu yidhi ninkan ma garanaysaa anigu waxaan maya garan maayo adigu ma garanaysaa buu yidhi oo maya buu yidhi
marka tiisina de waa idin sheegay tanan kaga jawaabayna marka warkeena waa lahaya way sukaya sheegay marka maasadan ana barata sidaan u dhigay jacaylkii ninkii uu dhiiga shubay waxaan barkaga yaabay hadday ku soo gasho gabadh iyo wiil jecel ninku dambaa jirtay oo qurbuhu qabtay waqtiyadii la tegi jiray intii iyo haddana ka dhigo Cumaan iyo Yaman iyo dhulka gabadhii markii uu dhaqaaqay ayay hawdka gashay dadba way ka go'day waxay weheshteen dugaaga iyo ugaadha in muddo ay geynta ku jirto jiris bay yeelatay oo haddii ka dhigo maalinka maanta way maradii waa ka idlaatay oo lagortii bahalaha yeelatay maalmaha ka mid ah ninkii waa yima wuxuu yidhi gabdhaaya meel waxay maanta dhaqaaqday bay dhaqaaqday halkay u dhaqaaqday jihaday u dhaqaaqday bal intuu soo jihadii baa loo sheego halkiibuu ka dhaqaaqo isaguna bilo ayuu dhulkii loogu tilmaamay kayntii dhulkii ku jiray oo raadinayay laakiin goor subaxa waxaa laitoo kale roobdaay si baadidoonkii wuxuu ku helay gabadhii iyadoo sii socoto xagga dambe kaga yimo iyadoo isagoo xaggeeda eegayo markaa laar qalalan ku joogsado qacbay tiro dib ay soo jeesato sakadha waxay isaga qaatay wixii ay la dariska ahayd bahalihii iyo gaadhi laakiin waa isagii wayarkii halkan waxaa ka dhacaya markaa sheekadii labada qof jacayl dhiig ma lagu qoray weli duux ma loo shubay qofna saarta dhabarkiiyo ma u dheegay feedhaha dhabanada cad laga jaray hadalkii ma lagu dhigay xinjiraan isdhaga rogin midabkeedu dhiin yahay laga dhulay halbowlaha weli dhiil ma lagu shubay laba ma isdharsiiyeen sida dhayda xoolaha dhagdhag ma wadaagin waa dhiiggii halkani waa sahali hadduu jacaylku dhab yahay intuu qofkii waraaqba iska daayay inuu waraaq soo qaato saantiisaa dhabarka intuu soo dilaaciyey dabeeto qofkii uu jeclaa ma ugu qoray wuxuu doonayay ama hadday ka dhab tahay intuu muddo qaatay oo dhabankiisa jaray qofkii dhabanka cadkiisa dabeetana ma ku qoray dhambaadkii iyo wixii uu doonayay ama se halkaa hadday soo dhaafto laba qof intay soo hor fadhiistaan labadii jacaylku koobka weel ma soo qaateenoo ma yidhi bal irbadan sareejka ku wadnahaaga oo dhiig ka soo shubo ma u dhigay isagii horta halkaas markay marayso iyadii ma u dhibaadna inta kale buuxi qardadii buuxo labadii dhiiga dabeetana sidii caanaha geela loo wadaagi jiray loo wadaagi kow weli laba isdhaarsaday beriyo dhaca nasiib iyo dhulku kala cilaalaa subax dharabku kowsaday dhedaduna cudoon tahay إلا عندي موية واحدة غاقية تشيرين شرب بسكوداني كل كي نبتها شيء اللي في كنتيو دلنتين ممودي أنا قف كلام واقع أنا قف اللي بروح ترى بركة قار كود حقيقي كهرت هذا لما بيسمع قف اللي بروح قاتين وما عرفتين ها sida ay dhadhawayaan dhowr jeer masalin of dhabaan dhabjabashada ma ka dhoofay hadalkii bal dhawaaqna kay tahay dihidii ma waaye bal ishelo oo iyana soo jeesatayo waxay isu jiraan ilaa halkan iyo ilaa raarta meesha aynu fadhino laakiin waxaa uu ka dhacay meesha hadalkii bay waayeen ay ku raali lahaayeen bal dhawaaqna kay tahay wala aqbalay ha ها بدوغنا كاي تاي دهيدي ما وايي افدبان دبجباشada ama ka dhoofay hadalkii badawagana kay tahay dihidii ma waayay ma ka dhabaqday xaajadu ilma dhalatay xiisuhu sida dhibic mahigaan ma ka qubatay dhaayaha ma fuqooyay dharkoodii iyagoo dhan qarankii dheeldheeli mooye dhegna aanay kaga jirin kolba eray dhexroobka iyo dhumucday ka maqan tahay dhutinaya keligii dhirin dhiris ma ku heleen hadba eray googo-an oo aan dhammaysan khasab kusoo saareen intaas maaha suura gashay intaasi kadib 10 dhaqaarood casabkii iyo dhan xaragii dhirin dhiris ma ku heleen ha
toban maalmood qofka meeshiisa taagnaa ay sidaan isu eegayeen 10 maalmood